waa qiso cajiib ah oo mudan in aan kula wadaago. odayda ah iyo wiil uu dhalay oo 25 jir ah ayaa soo wada raaceen tareen. wiilkan ayaa wejigiisa waxaa ka muuqatay farxad iyo reereen, waxa uuna xigay dhinaca daaqadda. wiilkii ayaa waxa uu gacantiisa dibadda uga saaray daaqadda, wuxuuna dareemay dabaysha iyo xabaaraha uu jarayo tareenka. kadib ayuu kor ugu dhawaaqay isaga oo leh, aabbo eeg, dhammaan geeduhu way ina daba ordayaan. aabbihii ayaa intuu dhoola caddeeyey la wadaagay farxaddii wiilkiisa, waxaana dhinac fadhiyey lamaane oo dhegta u raaricinayay hadalkan iyo farxaddan ay aabbaha iyo wiilku isweydaarsanayaan. kadib ayaa waxa ay la yaabeen sida uu ninkan dhallinyarada ah ee 25 jirka ah u dhaqmaayo. haddana si lama filaan ah ayaa mar labaad uu ugu dhawaaqay wiilkii dhallinyarada ahaa isaga oo leh, aabbo eeg, daruuruhu waa ay ina dul ordayaan. kadib ayaa labadii lamaane ee dhinac fadhiyey la sii yaabeen wiilkan dhallinyarada ahaa. intaas kabacdi ayaa waxaa soo daatay roob. kadib ayaa dhibcihii roobku ku soo da'een wiilka gacantiisa. isaga oo farxaddu buuxisay wejigiisa ayaa mar kale uu kor ugu dhawaaqay oo yidhi, aabbo, cirku waa uu da'ayaa, biyuhuna waxay taabteen gacantayda, eeg aabbo. halkaas markay maraysay ayaa lamaanihii isayn kari waayeen. markaasay weyddiiyeen odaygii, xaaji, maxaad wiilkan ugu geyn weyday dhakhtarka oo caafimaadka ugu raadin weyday? waxa uu ku jawaabay odaygii asigoo ilmeynaya, hadda ayaannu ka soconnaa isbitaalka, isaga oo iminka un ay tahay markii ugu horaysay ee uu wiilkaygu indhihiisa wax ku arko, waayo waxa uu ahaa indhool. haddaba xusuusnow weligaa walaal, wax natiijo ah ha gaarin ilaa aad ogaato sida ay wax u jiraan. horaa loo yidhi hubsiimo halaala siistaa. haddaba degdega ma fiicna, wax walbo in la hubsado ayay ku wanaagsan yihiin.